dadweynaha iyaga halkan isugu yimi odayaashayda halkan isugu yimi maanta goobtani waa goobta la yidhaahay xaafadda Xira Abo ee maamulka dawladda hoose ay doonayaan in lagu soo raro dad kale oo jimciyadii Sooyaal sheeganaya waxa weeye goobtan aynu arkayno waxa degan dad maata ah iyo dad xanuunsanaya oo waaweyn nin walibana wuxuu deganaa 35 sano ama 40 sano ninkii maanta ku dhashay waa qaangaad marka waxa weeye waxaanu ka cabanaynaa anagu maamulka dawladda hoose oo dadkan intay u yimaadeen ku yiri waa la idin raraya meel loo rarayna aan loo sheegin mid miskiin oo soo dilay baan dushaan oo ku sita mid miskiin oo kala dul dhigaya aqliga ma gasho waxa weeye maamulka dawladda hoose inuu dadka kala hago ayaa muhiim ah oo samaha lagu dadaalo shicibka laakiin lagu taadiyo oo nin walba sida uu doono uu yiraahdo waan ka yeelaya aqliga ma galayso waxaan u sheegaynaa madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha gudidii dan iyo duco ee uu gudoomiyaha chairmanka ka ah Muuse Xirsaab Bakariina ina Cabdilaahi Mire in maanta gobolkii saaxil ee ummaddu ay ku wada nooleed in la yiraahdo bulshadii inna way deganaanaysaa inna ma deganaanayso mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa war dadka sharci baa deeqa sharciga haddii la soo dhaafo wax ka xun baa yimaada xukuumadda madaxweynuhu uu garwadooyinka ka yahay waxaanu leenahay arrinta ka socota maanta Xira Abo iyo dadka maatida ah ee lagu tacadeeyo waxa laga qabto